ina bixida marka uu dibadda u baxayo wuxuu ka haysan jiray wasiirrada wasiirkii maaliyadda cawil buu ka haysan jiray oo wuxuu ka haysan jiray adna aadan dhaqtan oo wuxuu ka haysan jiray qaar badan oo muhiim ah adiguna waxaad ka haysatay ninka madaxtooyada joogay dhukuran ee aslam laxooxdaba ka cuntay ee laxooxbay naga cuntay yiri ayaad ka haysatay madaxweynayntii aad adigu shirka ku jirtay waxa iyagu sameeyeen dibadda meel dibadda ah ayay kamarada iskaga tuugayeen iyo tarabuun maran oo la salaamayaan dee arkayn ee qadiyadeena iyo maxaan ku raadayay iyo maynu hayn waxaas kamarad ila duuba iyo muuqaal iyo sawir may ahayn qadiyad ka weyn baynu wadan marka madaxweyne wasiirradaada haddii aanad waxba ka bedelin walla meesha waynu wadaagyo gacantaynu wadagelino qasabay nagu noqon inaan meesha kula wadaagno haddaanad waxba garanaynin ee madaxweyne meesha gacanta aanu kula gelinno oo wariyaa maali jirayay baa la yidhaahdaa marka ay wax kaa qaldamaan maali jirayaydiina ma garanaysid markaa sideenu kula dhaqannaa madaxweyne iminkana qadiyadda reer somalilan uma baahna sawir iyo muuqaal iyo wax yaroo layska soo duubo waxay u baahan tahay arrimo muhiima iyo ictiraaf la keeno markaad inta wasiirrada aad wadato waxba inoo hagaagi maayaan